السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مدن أقسم كسر دو قبلي واحد كسر دو تام مدحتويدي قبلي مدحويني وريش جمهورية الصوماليلاند قبلي لما مشروع بيكره حشيات بن لو حمل شري مدحوينه لكن لما ذا قولي قام مرتدا يدامك لما ذا مشروع ما نكاينا قولي قام مدحتويده قولي قام وذاك سوا قولي قام قروح تبضل له مركها هرت مدحتويده كسر دو ما كلنا أقسمه وحكلوا سود وين يا ولا شيء هذا بيديريه الله نحرسته مشاهد وين بعد الله باهي صاحب هاي نسكت شبادي هاين أبي ديري أنا قبل كويسير خانة ده صاحب أنا هاي صاحب ديوان هاين وهو هاي قبل كان تاريخ تيسه خصوصا بركة هذا واحد كله ولا كسودو إذا هاي نحكي كوا أسطورة حنان بالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما يدلي هاي أنا روتي ما تفرح وين بروتي تهاي واحد فرح وين يقول تهاي إن أن سفر بدن بانو بحي agaasimeyaashii madaxtooyooyinka qaybo badan oo kamid ah xilkii uu soo wareejiyay oo xilalka wasaaraddu ay magacawday Gabiley laakiin si gaar ah baan ugu faraxsanahay marka koowaad ee magaalada Gabiley oo anigu aan si gaar ah u jeclahay in badan baan ku soo noqon jiray anigoo waqti wada joognaa anagoo mucaarada bariga xitaa la idxaminayay anigu Gabiley aad baan u iman jiray ciyaalkaygaan keeni jiray waan ku faraxsanahay maanta marlabaadka waxaan ku faraxsan Gabiley guri aad u qurux badan oo madaxtooyadii aan mas'uul ka ahay maanta laga dhisay madaxtooyada ugu qurux badan leh aad iyo aad baan taana ugu faraxsanahay waxaan leeyahay shacabka reer Gabiley haniya laka waxaan kaloo ku faraxsanahay hoodo anigu Abiib Diiriye Nuur Xajiin saaxiib baan ahay saaxiibkay buu ahaa muddo dheer xukuumaddiisii ilaahay oo soo wada shaqeynay oday buu ahaa qaran oo in badan soo shaqeeyo qaranka soo shaqeeyay dhammaan madaxweynayaashii Soomaaliland soo maray Muuse aan mucaarad ahayn iyo Cabdiraxmaan oo calfan mooyaane Abiib Diiriye Nuur xilal ka soo qabtay oo wasaaraddu ka soo shaqeeyay inta badanna wuxuu ahaa marka xilka shaqeeyo Abiib ilaahay godka ha nuure muu ahayn wasiirada warqadda duca qow madaxa kaga dhacday inta badan isaga iska tagi jirayba markuu arkay inaan sii wadi kareen taariikh badan buu lahaa جاهد بوهارنتي مركان دشي أبيبنا إن ما تكوري شيء يعني فرحت كهربائي تايرنتي هذا وإن دايرة وحرتين يعني رنتي شغلة كسب حيطانته أمرك هو هذا هرتا بوخ وحنا هاي تقول جاي دام كاس ما يرى بدحتوي دي دام دوم بدحويني هورينا لسه ما يرى وأنا قم بهذا غيره مسبح عبدي رنتي وحجبي لك قبته هذه مشروعية كلا جدا لكن أنا قلت واحد سيجارة وقام هندقنا مدحتوية مدحتوية قروح بمرنتي سيستم كيس لسه أنا قام هندق أنا قلنا هالكاسم كسي ودي دونا وأنا اللي دونا وحكوسي كرر مويا رح كمان نص قامي دونا مرخورة حنوم هندقنا إله يسوي كيني حفلة شرفت بدن إنه كسر دوين إنه ولا شيء هذا إنه كسر دوين إنه مرخورة وحن سلامة إياه أقاسمها مدحتويدة صاحب في عن من هالكيسة عن إسلاي هاي رجع مشاهدين تي سوى هالجميع حقوق هربي ويان أيام كسودوين يا منير أحمد عقال وعلى منير كسودو هرت إنك استاد ريجي بلي دمر كورس كايد يمجرتي وقبل أنا أقول فوق الله بني كسودو من له مرات وحس هذا سلامة يا لبدا مسؤول كقبل خا يا مسؤول كدقمة أما ما يركيه برصابك صادق الرسان سلامية دمان قرب كهوينك أقول رئيسهم الخير وقدومي قرب كهوينك الحقيقة قبلها يدمان مسؤولين تقالي هالكم وتشوقة أنا كوبي كرين أيان سلامية مرك أنا وان دعائي تردار أنا بين كل أنا مرة يعني وبدن تيجي قد بدين مرك أروح دعائي أنا نتاير ده غير لي إلى هاي حلك أخو أسترو أيضا أنا وحكو تردارية إني دمر كهوين هو يوينكيد لاغليك ka shaqeynaya meesha inay si u ilaaliso sidii hooyadeedu ilaalin lahayd inta rahmatullahi barakaatu inta kadib kulli waxa la yiri goor gaaban hadalkeed gaaban farxad weyn bay noo tahay maanta inaan halkan joogno annagoo ka qayb qaadanayna baashirida soo dhaweynta hambalyeynta walaashayo hoodo Abiib oo mas'uul ka ah maanta wixii ka dambeeya ama agaasimaha guriga madaxtooyada Gabiley ah
gacmo furan kusoo dhaweey baan ku leenahay sidoo kale waxaan u mahadnaqayaa shaqaale weynaha ka howlgala madaxtooyada intan leeg waan dareemi karaa tirada halkan ku qoran iyo baaxaddu inay aad u kala weyn tahay laakiin waa barbilow fiican mustaqbalkana laga kordhin karo shaqaalaha waayo markaad aragto dhismahan dee quruxdiisa siduu nadiif u yahay dadka ku dadaalaya waa hablaha iyo hooyooyinkaa jooga xaqiiqatan sababtaan u nimina waxay qayb ka tahay inaanu ogaano idinka laftiinu duruufahaad ku nooshiin oo imika inantii halkan ka hadashay luul waxay sheegtay magaaladii iyo halkan idayna kala go-an tahay halkaa ay ka soo lugeeyaan marka kule duruuftaana isagoo agaasimaha gundigu hogaaminaya waa qaadi doonaa sidii wax looga qaban lahaa intaa kadib halkan waxaa weeye gobol isla markaana barasaab baa jooga maayir baa jooga madaxtooya ku taalla madaxtooyadu si guud waxay hoos timaadaa madaxtooyada kale ee qarankee weynay magaalada hargeysa ku taalla ama xarunta waddanka ku taalla sidoo kale waxaa wada shaqayn doontaan maamulka gobolka ee ugu horeeya maxay ahaydey barasaabku wada shaqayn baa isagana ka dhaxaysa oo nidaamka dawliga ah waa mid isku wada xidhan oo wada shaqayntiisu mar walba ay tahay mid is dhammaystiraysa intaa kadib maanta waxaa ku fuulay maalintii lagu magacaabay maanta ka dambeysay oo ah maalinta xilka la wareegayso mas-uuliyad weyn baa ku fuulaysa mas-uuliyad ah dadka lagu dhiibay marka laga tago imkaaniyaadka kale iyo maxay ahayd dhismayaasha inaad tahay qofka mas-uulka ka ah baahidooda inaad hoos u eegto inaad ka warhayso inaad dhex u noqoto qofka maxay ahaydey mas-uul meel ka noqda waxa uu ka dhigan yahay sida aabba iyo hooyuu carruurtooda iyo awlaadooda uu dhexda ugu yihi mar walba mid walba gaar uga hayo marka waxaa lagaaga baahan yahay hoodoy inaad maxay ahayd duruufahooda jooga title-kiisa ku salaamaya insha Allah waxay naga dhaxayn doontaa shaqaaliyaadkan ka shaqeeyna waanu mahadnaqaynaa insha Allah shaqo fiican bay naga wada dhaxayn doontaa biidnillah anigana waxaad weydiisanaa inaad ii soo ducaysaan in xilka Ilaahay ku asturo insha Allah horta madaxtooyadani waxaan ku faraxsanahay inaad tahay madaxtooyada ugu quruxda badan leh Jamhuuriyadda Soomaaliland min bari iyo galbeed agaasimaha guudna way makhraat furaya waayo waxaan soo raacnay bari iyo galbeed oo aan soo raacnay way makhraat furaya taana wax kala ma sababine waxa hayduun meeshii ugu dambeysay ee la dhiso oo la jaan qaadaysa standardka Rio Architecture ugu mahadnaqaynaa iyadoo noo diyaarsan design-kan waxa kale oo mahadnaqaynaa Xaaji Muuse Construction oo isaguna dhismahan ku faryareystay waxaanan ilaawi doonin shaqaalii madaxtooyada ee joogi jiray oo 24 saacadood heegan ugu jiray siday madaxtooyada u noqon lahayd qaabkan ay maanta u egtahay waxaan mar kale u mahadnaqayaa shaqaalaha madaxtooyada Gabiley oo iyaguna si hagar la'aana uga shaqeeya oo arkaysan quruxdeeda iyo marmarkeega quruxda wadaawanaad oo isku daawanaysaan inta hadan kaga soo baxo waxay ka kooban tahay madaxtooyada waxay ka kooban tahay 6 dhisme kan oo gurigii martida ugu weynaa ugu horeeya guri gaar oo madaxweynaha loo diyaariyo in farta laga qaaday store ciidan ku leeyahay hubka dhigto xilliga nasashada ama xilliga qaybi ay ka baxayso store labaad oo agabka madaxtooyada la dhigo madax u gaara oo lagu martigeliyo wafuuda waaweyn ama wafuuda ballaaran madaxweynuhu hogaamin lagu martigeliyo masaajid ballaaran oo ilaa 200 qof ay ku dugan karaan iyo qolal ciidanka saraakiisha ay degaan horta qayb ahaan taas uu ka kooban yahay haddii aan u sii gudagalo guriga madaxweynuhu wuxuu diyaarsan yahay guri si heer sare qalabaysan weeyaan oo diyaarsan inuu madaxweyne ku marti noqdo Allahumma salli ala Muhammad waxaanu leeyahay isaga iyo familkiisu waxa uu qaabil karay qaybihii cuntada fadhigii Allahumma salli ala Muhammad qolalkii kale martidu la degaysay yaa u diyaarsan yihiin waxaanu leeyahay kaga duwan yahay geed gaar u leeyahay oo cidda uu isagu doono ayo umbutay kartaa dadka halkan jooga dadku iga hadda halkan jooga halka loo gudbi karo oo deel u gaara ay leedahay haddaan imaado halkan fooqan wuxuu ka kooban yahay 3 qaybood oo ka kooban yahay qaybta koonfurta oo qaybtii martida ah iyo qaybtan hoose oo qaybta martida iyadoo lafteedu ah total good waxa yaala 20 sariirood oo dhamaliye single base kugu jira waxaana marti gelinayaa marti ah 29 qof ama wasiir ha noqdaan ama wixii waftiga marka la socda waxa kaloo jira fadhiga weyn oo arkaysan oo qalabaysan oo sida quruxda badan la aad u fadhidaan waa qayb kamida waxa jirta qayb sare oo miis cuntiyo oo weyn yaalo oo lagu tala galay madaxweynuhu ku qadeeyo ilaa 20 qof oo si gaar ah ula qadeeya iyo ilaa 40 kale oo marti sharaf ayaa uu leeyahay waxa uu leeyahay suuliyada public oo nu badinay waxa uu leeyahay qol cafeteria halkan naga soo horjeeda
oo bunki yaal oo xilli kasta bunki laga helayo marka hoodan waan ku soo dhaweynayaa walaashay waan ku soo dhaweynayaa shaqaalaha jooga halkan waa 13 shaqaala waa 13 shaqaala afar inan inta kale waa dumar waxa kale ku jira inan ayadna ilaa weyno ciidanka cuntada sameeyso oo aanu anagu wasaarad ahaan aanu garab siino oo iyadna qofka danyaro joogta oo ilaa weyn agaasimaha guudna farayo inuu gabadhaasi gaar uga warhayo shaqaalahayga kalena way joogaan waxaan jecelahay inaan hortayga laftooda kalmad siiyo waan mahadnaq